qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa eedayn u soo jeediyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo xogayaha fulinta ee degmada. eedayntaasi ay soo jeediyeen xubnaha golaha deegaanka ee degmada qaarkood mas'uuliyiinta dawladda hoose ayay ku sheegeen xubnahaasi in dariiq ka mid ah kuwa halbowlaha oo ah magaalada Boorama ay madaxda dawladda hoose si sharci darro ah dad ganacsato ah ku siiyeen. waxaana ka mid ah hadallada xildhibaanada golaha deegaanka ku eedeeyeen mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boorama. xildhibaanada golaha deegaan ahaan wada aan furno mooyaane wada aan dhisnaay looguma jirto qorshaha maanta waa arkaysaa dadweynaha xataa inta wadooyinka la siiyay baa laga hor keenaya oo imika bulshadii baa isku dhacaysa dadweynihii deegaankii ee wadada lahaa ee marayay iyo xaafadihii iyo waxa isku hor keenay imika sariimad waxaan isku hor keenayaa waxa weeyaan gudida fulinta ee dawladda hoose Allahumma hal ballaqtu wixii mas'uuliyad halka ka yimaada waxa iska leh xogayaha fulinta ee dawladda hoose iyo waxa iska leh wixii dhibaato halka ka dhaca meerka magaalada warbixinta waa siinay in arrimaha joojiyaan qof kasta oo u baahan in hadduu yiraahdo maxay daan anigu gidaarka wadada halka ku beegan baan dhisayaa oo waa dan guud oo ummad waxa danta guud waa in la ilaaliyo oo wanaageeda la ilaaliyo fawda bixisay fawna waxay ahayd inay lacagta ay ku bixinayso gidaarka qadaraas la qaatay hiliblaha waa la gashaday laakiin hilibayaasha waxa uga faa'iido badnay lacagta ay qandaraaslayaashu qaadanayaan iyo maamulada ragga maxay daanay la maraya ay qaadanayaan ee jagooyinkoogii loogu iibin lahaa ee dhismayaalka qurux badan loogu iibin lahaa ee meel ay ku ganacsadaan looga iibin lahaa ayaan darrada ugu weyn waxay ka dhacday in wadooyinkii la geliyo maxay daanay oo iyagana been abuur loo sameeyo anagu xogogaal baan noo nahay golaha deegaan ahaanna waxaanu kalfadhi baanu ka yeelanaynaa emergency go'aan baan ka soo saaraynaa go'aanka aan ka soo saarnaana socon doona wax kale oo aan arrinka kaga hadli karnaa ma jiro bulshadana la iska horkeenay maayo. Assalaamu alaykum. Wixii waa la arkayaa idinkeena qaadna doonaysan suuqeyn maayo ka wada nimanana ku in la joojiyo suuqeyn wixii ka dambeeyay ma garanayo maayo magaalada waxaan ku ogeeyay in la joojiyo halkaas waan suuqnay hadda si gooreen loo dhisin anagu saasaan ogeyn in joojiyuna intaasaan ogeyn waxaan tiri muhiimadu waxa weeyaan in wada la baneeyo wada la xidhan ma muhiimadu waa intaas dadweynaha waxba in la iska horkeenin oo la odhanin annaka meesha wadadii weeyaan dawladda waa banaanaysa halkii kale dadisaya iska taala laakiin meesha waa meel dadweyne waa meel public ninka dadka wuxuu taraya ugu taro meelaha maxaa ku dhaay wax lagu qaban lagu qabto halkaas lagu doorteeda si ma ogolaanay wixii loo soo doortay waa shaqadayadii inna ka yeelay assalaamu alaykum waxa weeye horta runtii maanta waan arkaysaan bulshada anaguna bulshada aan wakiil ka nahay oo waxa weeye bulshadu waxay ahaayeen dadkiina soo doortay waxaan u taaganahay waxay ku wanaagsan yihiin inaan ku hagno wixii naga tamaroona inaan u cadayno halka aan ka taaganahay waxa weeye waxaanu ka hadlaynay jiingadaha sida sharci darrada ku dhisan ee wadooyinka soo galay maantana tan waa tu ka sii xag jirto waxa weeye waaba runtii guri dhagaxa waxaan anagu ognahayna maaha waxa weeye ka kawsal ahaan laakiin cidda waxa weeye fulinta ayaa hawsha gashay waxa weeye anaguna wixii nagaga haboonaana waan ka yeelaynaa bulshadana waan u sheegaynaa inaan hawsha anagu waxa weeye aan bari ka nahay runtii ay tahay hawl musuqmaasuq kulay sida xildhibaanada hore u sheegeen waxaan anagu matalaa dadweynaha inaan طريق xidhan banaynin mooyaane inaan dhisnaa ma ogolin saasaan xildhibaanada kala quraxsanahay. sidoo kale qaar ka mid ah shacabka degan xaafadaasi la sheegay in laga bixiyay dariiq ku yaala dhisma ay dhisanayaan dad ganacsato ah iyo qaar ka mid ah ganacsatada degan suuqa lagu gado khudaarta iyo hilibka ayaa iyaguna arrintaasi ku tilmaamay mid khaldan oo baalmarsan nidaamka bilicda magaalada waxaana ka mid ahaa hadallada ay ku diidan yihiin dhismaha laga bixiyay dariiqaasi kadib uu oodmaya soo garmayay kaasuu oodmay oo deegadahaas wada ooday halkana imika waa la wada dhisi marka dariiqo xirmaya markaan anu waan leeyahay laga daayay naalkan laga daayay waxaan leeyahay halkani waa dariiqii dadweynaha weeyaan xaafaduhu saaka way soo wada baxeen waxay yiraahdeen nin walba annana guriga horteedaan qodaynaa bay yiraahdeen saaka waa la soo wada qaatay dadna boobay bay u dhisan tahay hadda u dhisan tahay waxa weeyaan annagu inta annaka dhisanayna alaab baan dhiganaynaa iyo qalabna loo keenay oo meelan dhiganaa weynay
si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay golaha deegaanka ee degmada Boorama xubno ka tirsanay ay eedayn u soo jeediyaan mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boorama. haddaba mar aan isku daynay in mas'uuliyiintaasi eedaha loo soo jeediyey ay jawaab ka bixiyaan eedahaasi ayaa waxay noqotay in iyagu ka gaabsadaan inay wax jawaabo ka bixiyaan arrimahaasi lagu eedeeyey. Hashim Sheekh Cumar Good, Somali Sat TV, Boorama.